جنرال ويسلي كلارك وكان الناتهي سنشري na American officer weyn ahaan jiray dagaaladii Vietnam farjar ku dhaawacmay sideetan jir hadda maraya oo retire General Wesley Clark oo ninkan naataysan jiray baa wuxuu leeyahay markii 11 September nagu dhacday 10 maalmood kadib baan Pentagon-ka imibulay waraysi uu bixinayo October 3 2017 10 maalmood kadib baan imibulay Pentagon-ka guriga ciidanka Mareykan looga taliyo markaas waxay ugu yiraahdeen buudi Ciraaq baynu weeraraynaa waan yaabay buudo way baan weydiiyay buudi maxaynu Ciraaq u weeraraynaa ma terrorist link la leeyihiin baan ku yiri bayday markaas ay yiraahdeen maya 11 September wax shaqo kuma leh hadda maxaa loo weerarayaa baan ku yiri buudi ninkii ila hadlayay sarkaalka wuxuu igu yiri buudi arugu garan maayo dagaalkii Afghanistan baan galay buu yiri 6 wiig baan maqnaa waan soo noqday markaan soo noqday ayaan janankii la kulmay buu yiri dabeetana waraaq uu xagga hoose intuu ka soo saaray ay wuxuu yiri madaxdu waxay igu yiraahdeen 7 dal oo muslimiin ah la weeraraya 7 dal oo muslimiin ah la weeraraya markaan yiri waa maxay sababtuna sababta anigu bagalay ma sheegin buu yiri garan maayo waa 7 waa Ciraaq Syria لبنان ليبيا صوماليا السودان إيران تضبطي بهذا والله ويرى وقت يعني كور ربينا يعني تضبط شيء إنما تضبط با والله ويرى وقت ياسي كذب ساشي سويدين تلو حيتهاي رجال بيتكم حين قربان ضعفاء ومساكين وحبيلين وملح الله اسكفردية حيكون فليان ويكحق بدين دي الاستودة waxay yiraahdaan dhowr galbeedku waxay rabaan waxay u bixiyeen nimankaasi 7 wadan weeraraya al-fawda al-khallaqa waxay yiraahdeen chaos banu ka rabnaa meesha tan ama si kala hadaan u tilmaamno waa taqsiim al-muqassam markii hore Sykes Beacon waa la googooyo wadamada yar yar baa laga dhigay markii la hubiyay mid walba inuu iyaga ku xidhan yahay ayaa haddana waa la googooynaya mar kale ayaa googooynta soo noqonaysa oo maxaa laga rabaa waxay leeyihiin waxa la doonayaa inay noqdaan al-fawda al-khallaqa creative chaos waxay yiraahdaan oo waa maxay macnaheedu wax weeyaan bay yiraahdeen decentralization then the government will be the UN bay yiraahdaan waa in wadanada tan dawladnimadooda la baabiyaa decentralized laga dhigaa cidda ka talinaysaana waa inay noqotaa UN-ta maanta Soomaaliya ka taliya dawladaynu daynagu markaynu wada hadlayno soo sheeganaa dawladda iyo gobollo iyo waxbaynu sheegnaa dawlad kasta iyo gobol kasta afar wasaaradood oo kamid ah hay'ad UN taaba wax siisay hoos tagta waxay sameyn kartaa ma jirto inay hay'adda ku noqoto mooyaan dhowr wasaaradood UNDP baa u taliya dhowr wasaaradood UNESCO u talisa dhowr wasaaradood Save the Children baa u talisa dhowr wasaaradood kuwa qaxootiga u taliya hay'adka UN-ta ma yiraahdaan meeshan anaga xukunna laakiin afar wasaaradood hay'ad bay ku xidhantoo ka taliyaan waa dhammaan Soomaaliya dacal ila dacal wasaarad kasta afar wasaaradood oo kasta waxay ku xidhayeen hay'ad kuwaas ka mid ah waa decentralization kay sheegayeen ee ah dabeetana government-ku inuu UN-ta noqdo waxay yiraahdeen markii hore dawlado centralized ka jiray iminka waa in federaliyad loo bedelay bay yiraahdeen federal states Iraq waa la googooyay federal states baa laga rabaa Soomaaliya waa la googooyay federal states baa laga rabaa Libya waa la googooyay federal states ma wada noolaan kartaan baa la wada leeyahay Suudaan waa la googooyay intii soo hadhay hadana hadda lagu sii wadaa Suuriya hadday kawaanka saarantay qoladii hore shiicadii waa laga saaray imika dheriga loo karinaya ilaahay setooda kama dhigo imika dheriga loo karinaya in 5 gobol laga dhigo duwaylaadka markii loo qaybiyaa yuhuud meel laga siiyay marka hore imikana marka duwaylaadka loo sii qaybiyo inta hadha loogu daraya saasha isweydiinta le wax weeyaan maxay naga rabaan waa maxay waxaynu yeelay naga doonayaan waxay yiraahdaan reer galbeedku isku dan qura inoo lama wada dagaalamayo qolo
diin bay u dagaalamaysaa oo hay-adkoodan masiixiga iyo saxwadoodan dambe kristanka evangelisku u badan yihiin iyo waxaan oo dhammi iyagu diin bay u dagaalamayaan ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا بيتاغي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم كوا سوى الدين قل يكالي وحيود دقالما يندق على هان وعالم الإسلامي لما الشيبان لقربا بشر متدربة قف بنا آدم وحلا بران دولة خرج كقبحن هل تصالان نسيو يورب مركي لا اسكو فري ايا بولند waxa ka dareeray dadkoodii aqoon-yahanka ahaa waayo lacag badan baa lagu hayaa Yurubta galbeed dabeetana dhakhaatiirtii injineeradii wixii baa Jarmalka u guuray Jarmalka ay lacag badan ka sameynayaan dawladda Poland waxay soo xisaabtay qof walba wixii kaga baxay dabeetana Jarmalka ay ku ashtageysay lacagta inta laginu soo celiyo haduu dadkii qaatay dadkaanu soo saaray intaasoo kharasha ku baxday dadkan aad qaadatay soo celi Yurub baa la isula tegay Jarmalka lagu xukumay inuu lacagta dees ka bixiyo ilaa dadkan dad baa wax bartay iyadoo halka maraysa ayaa Suuriya durbaanka dhabarka laga dhuftay 1 million people oo dhakhaatiir leh oo injineer leh oo wax walba la bay heleen Polishki waxay yiraahdeen ka haysta dadkiina uma baahnina waxa la helay badiilkii oo laga keenay xagee laga keenay Suuriya baa la helay idan bashar mutadarriba way u baahan yihiin way dhali waayeen dhalinyaro u xoojisay u baahan yihiin man power bay u baahan yihiin hatta kuwaan wax garanayn waa loo baahan yahay iyagoo man power waxa kaloo caalam islaami yaala khamaat rakhiisa waxa la leeyahay waxa macaadin loo baahdiyo shidaal iyo everything oo talata beestan laga siisto marka qolo aan diinba iyagu rumaysanin iyagu waxay kula dagaalamayaan mentality-ga ah dhaqaalay u dagaalamayaan qoliyo kale waxay caalam islaami ula dagaalamayaan geopolitics waxay u arkaan mantaqadan cidda xukunta inay dunida xukumi karto حتى هذو دقالة هنك مارمو وحارك أما تقدم ما ملكيدو ويوحيورو الإنجليز كو بحيد check points كوا دمالهن ودنا ده مكلا سوق ليه لقى قالوا واحد هذا دوني ده سيدات check point بكويا لا تضبع عالم الإسلامي كويا لا كبنا مكان لك كويا الله قرا أياك بحسن انت كاله لبا تركي جاي كتالا ميدوا جبل الطارق ميدوا كان كويا السويس كانال ميدوا كانال كان هرمز ميدوا باب مندب ميدوا مالقا كان اندونيسيا كويا لا waxay dhahan check points ka dunida oo dhan gacantooda ku jiraan haday iyagu gacanta kuwan si dhaba ugu dhigaan dunida way kala gooyin karaan sida awgeed ninka raba inuu dunida ka tariyo iyo badaha dunida uu ka taliyo qadiyadan dib baynu uga warabi doonaaye waa inuu check points ka gacanta ku dhigaa marka kuwa raba xataa le dhaqaalahan uma baahnin oo waanu haysanaa waxay haystaan oo dhami waxay leeyihiin laakiin inaanu mantaqadan xukunaa baan u baahanay qolo kale waxay leeyihiin xataa haddii mantaqada laga maarmo waxaanan rabin model xadaara oo ka fiican ka iyagu inuu soo baxo dadkani waxay leeyihiin xadaaro values leh iyaga xadaaradoodu waa technology laakiin value ma walato qofka bini'aadamka qiimo uguma fadhiyo aan ahayn qaanuunka guud akhlaaqiyadki iyo dadnimadii waa dhimatay marka waxay leeyihiin ma rabno modelanka iyaga inuu dunida ka muuqdo وسوكان China iyo kuwan soo baxaya kuwan waxay leeyihiin tanaafus dhaqaalaha naga dhaxeeya laakiin xadaaro isku bahayno ma values kuma hayna bay leeyihiin laakiin kuwa kan haday soo baxaan bay leeyihiin waa value cusub oo dunida ku soo kordhaya waa systemkayga ka gadisan walidalik afkaartooda dhan markaan isku soo daro bikulli tawaifihim kuwa mutadayiniinta kuwa mulxidiinta kuwa markaan isku soo wada darto waxay leeyihiin meeshaasi inay daciif ahaataa dan inoogu jirtaa العالم الإسلامي إنه ضعيف هذا بدن إنه وجرته ما نربى مركا إن نكور رماد نبدأ يجيستين أنت إلكتي ده وحيابا ما أنت كده عياتي في ذا كاركتر ما كفلان التاسع بلو تي في أدو قياس وحي كده عشري إما كو كاميرا الله يسكو هيو الله يسأركيو
ayaa waxaa aragteen dunida ka dhacayaan oo dadka muslimiinta lagu samaynaya taasoo aan dunida TV iyo kamera iyo cid ku arkaysaa jirin wixii ka dhacay siduu eegyahay yani kutubu taariikh qaarkood ma akhriyi kartid markaad aragto waxyaabaha la qorayo saddex muxaadaro noocan ay ku qoran laakiin waxaan jeclay inaan inta dambe oo dhan ka guuro aalaamta waayo aalaamtu waa waxaad dareemaysaan waxba idinku kordhin maya waxaynu u guuraynaa maxaynu kaga bixi karaynaa amaal maxaa rajo muuqda dadka in badani way quusteen waxay leeyihiin nimankan nuclear weapon bay haystaan kan bay haystaan maxaa cidi kama hor iman kartaa la taagay